السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فايكنج qoladii wargagaxa badnayd ee caalamka soo marna waxay Yurub ka dhex abuureen cabsi. Intaas kadibna waxay hoog iyo halaag dhadhansiiyeen dadkii Yurub ku sugnaa. Ugaarsadeyaasha ugu khatarta badan xilliga jiidaalka la gaaro waxay argagax ku rideen caalamka oo dhan. Waxay ku garan ogaayeen duulaamadoodii tirada badnaa, waxayna mareen galbeedka ilaa qaaradda Asia. waxay ka ganacsadeen dadka, waxayna daadiyeen dhiig badan. qowmkani waa Viking, shucuub asalkeedu uu Jermaani yahay. waxay ka wadan yeesheen bariga Yurub, waxayna isku magac dhabeen Northmen, oo macnaheedu yahay reer bari. iyagoo waxay ka soo jeedaan Denmark, Norway iyo Sweden. qabiilooyin ku midoobay inay hal saf ka dagaalamaan. xilliga xagaaga waxay tabcan jireen beero iyo ganacsi. marka la gaaro xilliga jiilaalkana waxay duulaanba ku soo qaadi jireen magaalooyin kala duwan. waxay soo baxeen qarnigii 7aad. waxay caan ku ahaayeen inay badmareeno ahaayeen. waxay luuqadoodu ahayd Nordiya, taasoo ka kooban 16 xaraf. waana luuqadda ay ka soo farcameen luuqadaha Yurub looga hadlo. waqtigii Viking waxa uu bilowday sanadku markuu ahaa 793, waxayna markii ugu horeysay cagta mariyeen jasiiradda Lenisberg ee Ingiriiska ku taalla, iyagoo meeshaas kaniisad ku dumiyey. kaniisaddaas oo ka mid ahayd meelaha cilmiga looga imaan jiray, waxayna ku dhex dileen kaniisadda dhexdeeda baadiriyadii joogay. dadkii degganaana waxay u kaxaysteen qaab addoonnimo ah. markaas waxay boqortooyadii Ingiriisku ku sifaysay inay yihiin dhiigyacab. kadib dhicitaanka jasiiradda Lenisberg waxay haleeleen inay boobaan hantida iyo khayraadka yaalla jasiiraddaas. waxay gabaadyadoodii ka buuxsadeen, waxay qaadan kareen oo hanti ah. waxayna sii wateen hawshoodii duminta kaniisadaha iyo boobka magaalooyinka. qarnigii 8aad waxay u diyaargaroobeen inay duulaan ku qaadaan Yurub, iyagoo u sii maray xeebaha Ingiriiska iyo Ireland. waxay galeen qacdii hore magaalada Paris ee Faransiiska, iyagoo u soo maray webiga Shiinaha. waxaa ballaaratay awooddoodii, waxaana badnaaday duulaamadoodii. sannadooyin gudahood waxay awoodeen inay khalkhal ku ridaan boqortooyadii Faransiiska. haddaysan ridinba, waxay dhufaysyo ka dhisteen aagag u dhow boqortooyooyinka Ingiriiska, Scotland iyo Ireland. sanadku markuu ahaa 856 miilaadiyada, waxay awoodeen inay qabsadaan boqortooyooyinka yararka ee ka agdhisay Ingiriiska. waxayna xukumayeen Ingiriiska kala badh muddo 100 sano ah, iyagoo intaas kadib isballaarin sameynayay. bartimihii qarnigii 11aad waxay ku darsadeen boqortooyadii Norway iyo Sweden, iyagoo ku mideeyay hal calan. waxayna sii wadeen isfidin, iyagoo ku soo darsaday Iceland iyo Greenland. kuma aysan ekaan Yurub kaliya, ee waxa ay maageen inay qaaradaha kale u sii gudbaan, iyadoo ay kutubtu taariikhdu qorayso inay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee caalamka bara qaaradda Ameerika. Columbus ka hor kuma aysan ekaan Yurub kaliya, ee waxay maageen inay qaaradaha kale u sii gudbaan, iyadoo ay kutubtu taariikhdu qorayso inay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee caalamka bara qaaradda Ameerika. Columbus ka hor iyagaa gaaray xeebaha Ameerika qarnigii 10aad. sanadku markuu ahaa 1960, waxaa la helay doomo qadiimi ah oo muujinaya inay Viking soo gaareen xeebaha Ameerika, iyadoo soo bixitaankoodii uu saameyn ku yeeshay caalamka. waxay ka qarsoomeen caalamka qaab la yaab leh. waxaa dhammaaday casrigoodii kadib duulaamadii uu qaaday boqorkii Norwijiga ahaa ee Haraldkii 3aad. muddadaas oo ku beegnayd 1660, oo waqtigaas ay jabeen. jabkoodii kadib waxaa nafisay dowladihii kiristaanka ahaa. waxay taariikhyahanadu ku tilmaameen in ciribtirankoodii uu sabab u ahaa inay qaateen diinta kiristaanka iyo inay shaqadii ganacsiga iyo beerafalashada ahayd ay dib ugu laabteen. waxay taariikhdooda ku galeen qoomkan Viking inay ahaayeen kooxdii ugu dhiigii cabsanayd ee caalamka soo mara. wasalaamu calaykum.